marwo Faadimo Saciid xogayihii arrimaha dibadda ee xisbiga mucaaridka ee wadani oo goordhaweed warbaahinta kula hadashay hoyga ay ka degan tahay magaalada Hargeysa waxa ay si rasmi ah markii ugu horeysay u shaacisay in ay iska caasisay xilkii iyo xubinnimadii xisbiga mucaaridka ee wadani marwo Faadimo Saciid ayaa waxa ay sababaysay arrimaha ay iskaga caasisay xisbiga mucaaridka ee wadani waxaana ay cadeysay in maanta laga bilaabo ay noqon doonto siyaasi madax bannaan maanta waxaan iska casilay xilkii aan u hayay ee xoghayaha arrimaha dibadda ee xisbiga wadani iyo xubinnimadiiba runtii maxaa haydin anu ma jecli inaan meel aan ka tago aan wax ka sheego waayo dad fara badan oo aan asxaab nahay walaalo nahay ceesho milax aan nahay baa ku jira marka meesha intaasoo dhan joogtay inaad haddana war xun ka sii tidhaahid waa shay xaaraana laakiin waxaan arkay marxaladan uu wadanku ku jiro sidii loo baahnaa inaan u wajahna inaanaynu u wajahayn sideedu u ogsoon tahay waxa weeyaan 10 sanadood ee ugu dambeeyay waxaaya fara badan baa maxaa hay Soomaaliland ku soo kordhay oo aana wada fiicnay haddii ay tahay sanaag bari maxaa hayd waxa ka socda hadday tahay ceelaf weyn oo aynu maanta 2 sanadood iyadoo jirto oo aynu guurti iyo baarlamaan iyo xisbi macaarid iyo maxaafidba aynu garan kara weynin 2 reer oo walaalo ah sidii aynu ka damin lahayn colaada maxaa hayd hooyooyinkii ka wada oohisay haddii ay tahay maanta oo aynu 30 sanadood ka soo wareegnay oo haddana maxaa hayd ay guurtidii iyo baarlamaanku ay leeyihiin waxaanu tegaynaa muxuu ahaa maamul goboleed cala masaarkeedii hadday tahay sixir bararkii oo aanaynu wax alla waxaynu ka qaban karaynaa aanay jirin oo aanay waxaas oo dhan oo aynu arkayna dadweynaheennii oo runtii dadweyne ka wanaagsan oo ka sharaf badan oo ka samir badan oo ka dulqaad badan aanay Soomaaliland jirin oo ay maanta 75% ay maanta beerka dhulka ku hayaan oo maciishadii ay cirkiga samawaadka isku shareertay maanta shaqaf yar oo dhuxula ay iibsan kari waayeen dan yartii buulalka iyo sandaqadaha ku jirtay halkii aynu ka eegi lahayn Hargeysa oo caasimadii dhameyd oo maanta biyo ah oo biyo la'aan ku jirto roobka oo Ilaahay inoo shabiyo raxmadiisa mooyaane markaan sidaa u eegay baan siyaasadeenina eegay maanta waxa hayd maalinta oo aqliga saliimka uu shaqayn lahaa inay macaarid iyo maxaafid iyo guurti iyo baarlamaan iyo waxgarad inay gacmaha maanta isqabsadaan oo yiraahaan bal maxaynu horta wadankeena iyo qarankeena ku badbaadinaa arrimaha dibadda halkay marayso waynu arkaynaa meel kastaba cadowba in maxaa hayd inaga jooga inaynu cadowga maanta iska caabino bay ahayd oo inuu gacmaha isqabsano niraahno maxaynu maanta aynu maxaa hayd qarankeena aynu ugu hiilin lahayn intaynu waxa ka hadli lahayn oo aynu qorshe cusub la iman lahayn baynu ku yooyootan hoose oo ku jirnaa runtii macaarad adagna ma jiro maxaafid adagna ma jiro marka siyaasadii waxay noqotay wax aan lagu milmiba karayn siyaasadii Soomaaliland wax lagu milmo maanta maaha marka waxaan ka fikray xalay inta aan maanta habeen oo dhan aan marna telefoon dhigta saari lahaa maxaa dhacay maxaa la yiri sideeba la sameyn waxa waxaan ka qaban karaynaa aanay jirin inaanan hurdada aanan iska seejin cirana aanay iga soo bixin waxaanan wax ka qaban karayn marka dabeetana waan tashaday waxaan Faadimo malaha wax ku fiican oo ku wanaagsan inaad maxaa hayd siyaasadda xisbiyada baad iskaga baxdid muxuu ahaa xisbigii wadani waan isku garan waayay siyaasadiisaan isku garan waayay siyaasaddu sidii aan doonaynay geedi socodkii aan ka rabnay waan ka arki waayay marka dabeetana inta aan dad aanu ceesho milax aanu ahayn intaanu isqa qabsan lahayn waxa ila ekaatay inaan iskaga fadhiisto wixii aan dhalinyaradu awalba u qaban jiray aan u qabto wixii aan hablaha aan maxaa haydin la isbaal taagi jirnaa isla baal taago qarankaygana wixii alla wixii aan u qaban karaayeen cod dheer iyo cod gaaban baan ugu shaqayn lahaana aan ugu shaqeeyo laakiin aan siyaasi madax bannaan oo xorriyadda u haysta fikirkeedii inaan noqdo haddii Ilaahay naftayda iyo waa suuragal dadka qaarkood inay sahdaan deegaanka ka soo jeedo amba ardayga ka soo jeedo xogeyaha guud xisbiga wadani ku lahaa
xogayihii guud bay waayeen markaa cadhadaasi waa mid la xidhiidha helitaanka xilkaasi jawaabtaad bixinaysaa maxay tahay marka dadka isweydiinayaan horta maxaa ahayd dadku wax walba way isweydiinayaan maalin horena waan sheegay waxaan haddaan koob biyaa aada soo qaadato istaahid cab waxaa la odhanayaa oo may quraaradeeda ku cabto may xagganu ka shubto iyo maxay xaggaa ku shubi kolba faalladu way fara badan tahay laakiin de waxa weeyaan waxaasoo dhamiba iskugu soo wada biyo shubanaya waxa weeyaan xisbigii geedi socodkii aan maxaa ahayd aan dee ka sugaynay himiladii aan ka doonaynay maan ku arkin maxaa ahayd waana ka yara gaabisay de markaa maxaa ahayd waxay la noqotay uun inaan bartaasuun halkaynu iskaga xumaan lahay inaan isku macasalaameyn marwa faadimo siciid dee waxaad ka mid ahayd xubnaha sarsare xisbiga xisbiguna dee wuxuu leeyahay golo iyo meelo lagaga doodo waxaan aad doonaysay hoggaanka xisbiga ma ula tagtay haddaad se ula tagtay maxay kuugu jawaabeen wuxuuse muxuu yahay qaabkiiba wuxuu doonaysay in xisbigu sameeyo edo macana sidaan kuu sheegayba waxaan anuu ma jecli inaan maxaa ahayd faalo dhaadheer ka bixiyo waxa weeyaan meesha aad maxaa ahayd cunto aad ka cuntay eed walaaltinimo ka cuntay eed ceesho milix dadka la haydeen inaad haddana ka daba maxaa ahayd hadasho ma fiicna cabdiraxmaan ciro waxa weeye anuu laba xisbi baan soo maray u cidiyo wadani cabdiraxmaan ciro waa qof shakhsi wanaagsan waxa weeyaan shakhsi isaga iyo qoyskiisaba aanu aad iyo aad iskugu fiicannahay muxuu ahaa Faysal Cali Waraabo oo siyaasadiisu sidoo doonayba ha aatay laakiin runtii shakhsi isaguba aad iyo aad u wanaagsan oo faxala oo maxaa ahayd akhlaaq wanaagsan dadka kula dhaqma marka maxaa ahayd oo ku nasiib badanahay inaan labadaaba aan soo maray laakiin haddana de waxa weeyaan qof waliba de wuxuu leeyahay maxaa ahayd marka uu xisbi ku jiro xisbiga mabaadi buu leeyahay mabaadidaas uu jecel yahay inuu de maxaa uu ku raacay de inuu ku sii wado ku sii wanaagsanaado marka dadna maxaa ahayd geedi socodkii aan islahayn uu ku amba qaadaya buu ka habaabay sida awadeed baan markaa uga fadhiistay wadaagay marwafaadmo siciid waxaan ku weydiinayaa hal su'aal dadka qaar baa waxay isweydiinayaan markay maqlaan marwafaadmo siciid oo kamid ahay dadka ugu cadcad siyaasadda xisbiga wadani way iskaashisay waxay isweydiinayaan in xagga xukuumadda lagaga gacan haadiyay bal arrinta iyada may wax alla wax lagaga gacan haadiyay ma jirto maxaa ahayd sida aan kuu sheegay weeyaan siyaasadda waan ka yara fadhiisanayaa fasax baan ka yara qaadanayaa maxaa ahayd siyaasiga madaxa bannaan baan noqon doono xorriyad baan u doonayay inaan maxaa ahayd markaa aan fikirkayga aan ka dhiiban karaayo gudoomiyaha xisbiga si fiican baad u ammaantay laakiin warar kale oo soo baxaya waxay sheegayaan xogayaha guud ee xisbiga iyo adiga khilaafidii dhexeeya arrintaas ma jirta waxaa laba qof oo meel wada joogo nin iyo gabadhiisina ha noqoto ilmo iyo hooyadeedna ha noqoto qof aanu hadal ka dhex marin waa shaqaba ma jirto markaa khasbiyan waxa weeyaan qof marka uu shaqa ay socoto dee waa la isku khilaafaya qalinkaa halkaa ha ku duugin iyo miiska halkaa ha dhigin baa ugu yar wax la isku qabsado markaa taasu dee wax maxaa xayay sal leh